haddaa cadaalad jirin garsoorba dalka ma jiro oo garsoorka laftigiisa tayadiisu iska liidataa maanta haddaad u baahatid inaad arrin qof ay kula wax kaa gasho waxay noqonaysaa garsoorkaaga inuu noqdo mid lacaga oo aad mataqaanaa aad juhdi iyo lacag iyo yaa meesha ka taqaanaa iyo adiga boqolkiiba dhibic eber inaad waxaad soo filanaysa inay cadaalad darro meesha ka jirto marka si aad wax u heshid waxaad kugu qasbantahay inaad corruption bixisid marka arrimahaasna waxay ku tusaysaa inay qofku marka horeba ku talagalay in dalka cadaalad darro ka jirto qaranka jaawareeyay allo jogta culuska qaad isaga jirna xalay jibriil dalka noogu dhiib ummadda Soomaaliyeed nabad waarta inay heshaa dib ma lahaanayso dhaqaale waa heli kartaa ilaahba khayraad ku manadeystay kalsoonida is aaminaada dhexdeeda ah waa la soo celin karaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad iyada ayaa deeqda cadaalad darro ayaa qarankeena burburisay haddii cadaalad la helo waxa sahlanaanaysa in dib loo soo celiyo qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed afartii sano ee la soo dhaafay waxa lagu xadgudbay tiirkii cadaaladda bulshadeed waxa laga doorbiday mid gaar ah oo u adeegaya dana shakhsi waxa lagu xadgudbay damaanada garsoorka madax bannaan iyo isla xisaabtanka sharciga dalka waxa uu noqday mid ku saleysan rabitaan shakhsiyeed magacaabista iyo xilka qaadista xilka garsoorka oo noqday jaantaar rogan guddiga kormeerka garsoorka oo aan abid la dhisin maxkamad dastuuri ah oo laga dhaga adeega dhisideeda xukuumadda oo aan dhaqan gelin shuruucda isla markaana noqotay mid ku xadgudubta sharciga waka lafta dheer ka jabay joogyo qaraxuna u dheer jaan xisbiya qashay jibriil dalka soo jale jaclo wadigu ku sugin ku xadgudubkaas dastuurka ee sharciga oo ku baahay dhammaan saddexda awoodood ee dawladda iyo iyadoo aan la dhisin dhammaan kaabayaasha gaarista cadaalad bulshadeed taas oo sababtay cadaalad darro baahsan oo xanuujisay muwaadin kasta oo Soomaali ah oo rajeynaya in dalkiisa cadaalad ku helo waxaan ballan qaadaynaa in dib u habeen buuxda iyo tayeen lagu sameeyo hay'adaha cadaaladda iyada oo la dhisayo hay'adihii dastuuriga ahaa ee ilaalinayay sareynta iyo usinaanta sharciga